guursanina nin faqiira bilaash isku wada guursada bilaash inaan waleeyba meherkaaga fudude u arkay qof culimo sheeganaya oo qayliya oo ooyay halkee lagu arkay anu gabar caroonaysa oo calool xun baan arkay oo murar dilaac rag ka hayo laakiin haddana rag la ilaahay naayaarxeen 5 sanadood baad sheekaysanayseen maxaad u sheekaysanayseen haddaan khaldamay oo aan qalad aan sameeyna macallinkaygu ay hor jooga raaligelin baan ka bixinayaa macallinkaygu ay hor jooga macallinkaygana ala ayn waraas macallinku wax weeyaan waa waxaan waxba looma dhigi karo dii raaligelin buuxda ayaan ka bixinayaa bilaash isku wada guursada bilaash inaan waleeyba meherkaaga fudude u arkay qof culimo sheeganaya oo qayliya oo ooyay halkee lagu arkay anu gabar caroonaysa oo calool xun baan arkay oo murar dilaac rag ka hayo laakiin haddana rag la ilaahay naayaarxeen 5 sanadood baad sheekaysanayseen maxaad u sheekaysanayseen lababa halkay ku heshiisay iyaga khusaysa hadday guur dadajistaan iyo hadday muddo sheeda iska eegtaan laan ee dumarku leeyihiin waa sheekh ina aadan siiro nin naagta aan ina aadan siiro daba fadhiisanaynay wallaahi billaahi qiisa iyo beerkiisu isku dhageen ee maalintii khandaqii dagaalka islaamka ee uu فارس سلمان الفارسي ولها خندق بقى نقدر شرنا نقدرنا كأشياء أوجد هالكادق حكوا حرم يانو هين يا كي دمر كإلهي وهبي يميانو هين دمر كإنانو يرد بكبحين جب كبحين نفتي وده أيوه بيان منهين كين تإناني أعتمد أي ترى رسول كإلهي ونفتي ده كوه بيان منهين رسولك محولو هيست هالكاد تاريخ دي رسولك هالكاد كمرت نما وحبا كادمان واني باتري ويديسay saake taaka wani baatiri weydaysay saake waxaan anigu mudaniyo waqtigaada adigu dhiman midna kama warhayside hayga wabi nasiibkayga na wadanka san noogu dhisma quruxda badan buuqa ku soo dhex tuuri war ilaa xalay daad baan qaaday gabar ra'yigeeda ku hadlaysa haddana diin ku gabanaysa inuu arkaynay horta waxaad ogsoonataan cirka iyo dhulka inta ku dhex jirta ilaahay abuuray makhluuq san ku neef lacaynu yahayba ilaahay taladooda laba wadahaya muu oran sida rag iyo dumar ilaahay rag buu amaanada dusha ka saaray hadday wax khaldaanna iyaga lagala xisaabtamaya hadday wax toosiyaanna iyaga lagala xisaabtamaya waxaad ogaataa dumar saalixaada oo sida Caasha Abubakar Sadiiq Khadiija bint Khuwayli Asma iyo Aasiya ay kamid yihiin oo kitaabku sheegay ilaa Maryama bint Ibraan dumar saalixaada oo diinta waxay ka arkeen iyo ragga ka arkeen fuliyay haayeen soo lama socotiin haddana gabadh inta aayad loo soo dhiibay la yiri dunidii gaarsiin ma jirtade waa daba fariis soo lama socotiin dumarkii haddaanu nahay xataa markhaati ma gali karno haddaan imika idhaahdo shaygaasaan arkay waxa la ileeyay mid kale markaa meesha taagneed oo kula arkaysay deekeen haddii kale warkayga laguma kalsoonaanayo nin hadduu meel isagu yidhaahdo caawa bishii rabadaan baa bilatoon arkay oo ummadii kale ana arag waa la dhaarinaya warkiisa waa lagu ganacaya hasan noqotay diinta islaamku markay noqoto madda dadka marada loogu gabado hadduu adiga bari nin ku xumeeyay oo tiraahdo allah dumaraw ninka fakhriga ah guursanina na hablaan idin la hadlaya taasoo diin ma ra'yi baan ku hadlay ka noqonaysa soomaad garan mid kale ilaahay ma oran fakhri haddaad ka cabsataan guursada dadka faqiirka isu dhisay ilaahay ba hodan ka dhigi doona miyaan oran ya xagga laga keenay tan waryaarheen war sheekh shaantay waan ogol lahay waa rag isagu hadduu nacaayo iyo hadduu cid kala duqeeyaba waa raggii dunida lagu aaminay laga xisaabtamay maalinta qiyaamo jidka siraad loo wada fadhiisanaya ilaahay ilaahu uu naxmeeyay nooga magdhaw laakiin naagiya halkee loo raacaya iyadii baa mas'uul laga yahay ama qabri ama guri ha ku jirta baa leeyahay hadalka dumarku waaba cawraba ilaahay baa kitaabkiisa ku sheegay halkee lagu arkay qof culimo sheeganaya oo qayliya oo ooyay halkee lagu arkay anu gabar caroonaysa oo calool xun baan arkay oo murar dilaac rag ka hayo laakiin haddana rag la ilaahay naayaarxeen 5 sanadood baad sheekaysanayseen maxaad u sheekaysanayseen lababa halkay ku heshiisay iyaga khusaysa hadday guur dadajistaan iyo hadday muddo sheeda iska eegtaan waa halkeeda midda labaad ninka dibadda ku maqan duqeynaysa aad leedahay maxaan ku raadayay naagta halkan joogtaa sidee ugu samraysaa arrimaha afkaagu saas u weeka miyaanad maqal yaa
dhaayuhu ma arkaan kolley dhaayuhu ma arkaan kolley qof meel dheer kaa jiree dambaalada soo diro dhagaha uniga la soco miyaanad maqal waxaan ku iri diinta dadka looguma gabado waxa weeyaan naar baad ku galaysaa mid kale annagu culimada Soomaaliland ee dumarku leeyihiin waa sheekh ina aadan siiro nin naagta aan ina aadan siiro daba fadhiisanaynay wallaahi billaahi xabsi baad galaysaa nayaa dumarka ayaa ku xareeyay naayada dumarka waxba iska noqdeen meel cid walba iska xareysato hablaha yareed waxa weey jacaylkiina ka weyn ciddad la heshiinaysaan ee guursanaysaan faqriga ugu macaan nabi maxamed kee intuu caawdu ku seexdo dhinacaas oo dhan ay kaga sawirmaysay markuu toosamiyaan kii bagiisa iyo beerkiisu isku dhageen ee maalintii khandaqii dagaalka islaamka ee uu فارس سلمان الفارسي ولها خندق بقى نقدن جرنا إنه قدرنا كأشياء أوجد هالكادق حكو حرم يانو هين يا كي دمر كإلهي وهبي يميانو هين دمر كإنانو يرد بكبحين جب كبحين نفتي وده أيوه هبي يمان هين كي أنت إناني أعتمد أي ترى رسول كإلهي ونفتي ده كوه هبي يمان هين رسولك محولو هيست هالكاد تاريخ دي رسولك هالكاد كمرت نما وحبا كادمان نيار هنا أنا بحشون يو وحن لها dadkii baa tawaqisay nayaah oo xageed sideed yeeli doonta aan laha nayaah ma faadma ku dayaadistiri faadma diinta kuma gabato waxa weeye wixii fikirkeeda ah iyo anaaniis dunidan kaga samaysaa igu soo biir baan ku yiri dooda hadaad u baahan tahay halkan aan ku haya qaar sida kuugu miisa Soomaad garan iyo qaar kale oo jawaaba oo yiraahdo hooyada daa oo hadana yiraahdo dayn mayno islaanta afkeeda ha haysato ciidankayga saaxiib ku soo biir laakiin dadka ku wareerin waxa la yiri ha ismoodin waayeel ha wareerin dumarkana yaa ha ismoodin waayeel ha wareerin dumarkana miyarad maqal Takawani batiri weydaysay saake takawani batiri weydaysay saake waxaan anigu mudaniyo waqtigaad adigu dhiman midna kama warhayside hayga wabi nasiibkayga na wadanka san noogu dhismo quruxda badan buuqa ku soo dhex tuurin arada reer Soomaaliland wiilal iyo gabdhaba leh waxa jacaylkeena ka weyn isku guursada Soomaad garan naagay adiga ninka aad guursanaysa adduunkiisa iyo ku muuqan ubadka aad ka dhali doono jirkiisa kaaga dhex muuqdo wallahi ninka awlaadiisa aad xambaara oo bari haduu dhinto ku xasuuso halka marnaayahay adduun wuu dhamaadaa manfac wuu dhamaadaa sharafka iyo qoysku ma dhamaado usra ma dhamaato hadii kale bari aduu sadafka u taagaysa adu leedahay alla waxana la yiri nin faqiiraha guursan saacad ba kugu socoto saliida markaad goosato halkaas ku ma jarsan laakiin waxaaba wax igaga daran waryaarahay dadku markaad adigu yar tahay dadkan waaweyn marka arkaysa dariiqad maraysaan bu soo dhamiyay